shirkan jaraa'id oo ay goobjoog ka hayeen madaxda sare ee wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo weliba qaar ka mid ah culimada waaweyn ee dalka ayaa ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka diinta iyo awqaafta Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed kaasi oo sheegay in albaabka kaliya ee sharci ahaan xukunka dalka ugu kala wareejin karno madaxdu ay tahay doorashada isagoo uu qofku dooranayo hadba cidda uu arko hal doorka dalka gaarsiin kara horumar dhinaca diinta iyo dhinaca bulshadaba ah tahayna doorashadu nidaamka kaliya ee lagaga hortagi karo amni darro iyo qalalaase dadka qaar baa la leeyahay iyagoo dacyaad ah maxaan ku raadayay diiwaangelintii ay ku tilmaamayaan waxyaalaha aan sharcigu banaynin amba ay ku tilmaamayaan haddii la ku leeyahay shughul shaydaan iyo wax la mid ah waxaanu caddaynaynaa oo aanu leenahay walaalayaal ka daaya bulshada khalkhalka iyo khilaafka ku abuuraysaan waxaan u aragnaa arrintiinaasu inay tahay arrin ummadda iska hor keenaysa waxaana arrintiisa inay tahay arrin u adeegaysa cadow u adeegaysa aad ka warhaysaan in asxaabtii rasuulka sal alla ly slam kadib ay doorashooyin ka dhacday amba mid kooban ha noqoto oo dhowr qof u xadiisan oo dhowr qofna loo bandhigayo amba ahaato mid intay dhex mareen asxaabta qaarkood dadweynihii oo ay dhex mareen hebel ka warrama hebel ka warrama hebel ka warrama dabtana ay aftidhan soo qaadeen Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed wasiirka diinta iyo awqaafta Somaliland ayaa dhinaca kalena imaamyada masaajidda ugu baaqay in khudbadda Jimcaha ee maalinta berri ah ay kaga hadlaan arrinta diiwaangelinta bulshadana ku booriyaan qaadashada kaarka codbixinta una iftiimiyaan sida aanay diinta iyo diiwaangelintu isaga hor imanaynin waxaan halkan ku farayaa dhammaan masaajidda dalka gaar ahaan masaajidda caasimadda Hargeysa ee Somaliland in ay berrito oo Jimco ah ku booriyaan dadweynaha inay ka wada qayb galaan diiwaangelinta codbixinta doorashooyinka una sheegaan baahida loo qabo iyo khayrka ay leedahay iyo wanaagga ku jira lagana hortago wax alla wixii khalkhal gelinaya ama maxaa ka hor imanaya isdiiwaangelinta codeynta codbixiyaasha doorashooyinka qaranka Somaliland mudane Nuur Cismaan Guuleed wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta oo isna halkaasi ka hadlay ayaa bulshada gobolka Maroodijeex ku canaantay qaabka ay uga qayb qaadanayaan diiwaangelinta isagoo sheegay in goboladu isku cod tirsan doonaan gobol kastana tirada bulshadiisa wax loogu qaban doono dadkii horkici lahaa baa tiin dawladnimada dadkii horkici lahaa baa tiin dadka hagaajin lahaa baa tiin hadaad garanba weydaan dawladnimadii dee waaba ayaan daro inagoo caasimadii ah weliba ninba waxaan sheegnaa intaa gobolkaaba intaabaa ku nool kaa kale intaabaa ku nool intaabaa nahay tiradayadu waa intaa dee Hargeysa ma iga cabsootay inay tiradeeda la ogaado iyadaaba caasimadii oo u tirinaynay badi dhici Sheekh Axmed Dhimbil agaasimaha waaxda fadwada ee wasaaradda diinta iyo awqaafta kana mid ah dadka u soo joogay ilaa iyo bixitaankii guumeystay Ingiriiska ayaa ka sheekeeyay taariikhdii iyo qaabkii doorasho ee Ingiriiska dalka lagaga kaxeeyay marka waxa weeye Ingiriis intaas soo 8 sano jihaaduna haysay Ingiriis dadkii u daqbaqaday mustacmarkii haystay gaalkii madaxa ka wadhay dalku u damqaday marka waxa la sutay waxa la yiri Ingiriis aan iska kicin warqadii aanu ridnay ee food ku ridnay Ingiriis laga kicisay xabadina Ingiriis ku weynaan kicin wax kale ku weynaan kicin laakiin foodkii aynu leeyahay naga tagay Ingiriisow ee la isku raacay iyo kicisay maslaxadu waxa weeye tadadnimadeena iyo dalnimadeena iyo diinteena maslaxadu waxa weeye inaynu qaadano diiwaangelinta weeye waxa iyaguna sidoo kale halkaasi ka hadlay Sheekh Maxamed Macalin Aadan iyo Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Faarax